اوكي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. walaalhay salaamu ullahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala mar kale inoo suuro geliyey inaan hawada aan ku kulanno sidii aad runtii awal nooga barateen in aan hawada idiin soo marino barnaamijyo la xidhiidha horumarinta bulshada, gaar ahaan qoyska, lamaanaha, da-yarta, waalidka iyo ilmaha, waxbarashada, aqoonta la xidhiidha caqliga, qofku in uu ka kobco qeybta fikirka, in uu horumariyo qeybta la xidhiidha ruuxda, qeybta la xidhiidha akhlaaqda, ugu dambeyntiina runtii in uu qofku noloshiisa uu ku nool yahay uu noqdo qof saalix muslix ah, qof naftiisa u wanaagsan oo naftiisa wanaajiyey, isla markaana u wanaagsan oo wanaajinaya bii-ada uu ku dhex nool yahay iyo meesha uu degan yahay iyo dadka uu ku dhex jiro, si uu u noqdo markaa naaficun linafsihi wa naaficun ligayrihi, qof isagu is-anfacay, isagu wax isku taray, isagu is-horowmariyey, isla markaana u gudbiyey, gacanta u fidiyey cidda kale ee hareerihiisa ah. waxaan ilaahay mahadii subxaana wa tacaala in hawada caawa ad naga arkaysiin muddo marka aan idinka mashquulay runtii oo aan idinka maqnayn waxyar. marka ilaahay mahadii inayba cumarnay ag fadhido oo aan rabno caawa in aan idinla wadaagno sida aan soo qornay. maxaa keena kala tagga, burburka, isfahan la-aanta, furiinka, aabiyi hooyoo kala cararaa, aabi iyo maxaanku idhahdayy xaaskiisii oo isfahmi waaya, ilmo iyo maxaanku idhahdaa waalidkii oo isfahmi waaya, waxaasoo dhani xagay kusoo ururaysaa ayaan rabnaa in aan balcaawa aan isweydiino. hiba cumar soo dhawow. gudaa hawada kugu dambaysa waa garta. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي بمهد نسوع عليي مدو أنكم مقنين رنتي وايدين حيسني ولا لهي إن ذاتك آسك نوجع إن على الصعدة برنامجيدين ذاتك حيسايا ذاتك أن وداقنو هرمرنت بورك إيا هرمرنت النفط أن وداقنو waxaa idinku salaamayna salaanta islaamka, salaanta ahlu jahanaha ayaa idinku salaamayna oo ah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. runtii maad aragtay idinkama maqnayna waa idiin maqnayn ayay soomaalidu tidhaahdaa. nacam. marka aada iyo aada iyo aad iyo in fara badan ayaa idiin haysna, runtii in fara badan howla adduun baa naga keen mashquuliyey. ilaahay waxaan ka baryaynaa in maad aragtay khayr isku sheega iyo wanaaga iyo dacwadda iyo diinta iyo ka shaqaynta bulshada inaanan ka mashquulin, oo adduun iyo wax lamid ah inaan ku mashquulin insha allah. aakhiradeenna iyo ifkeennaba wax doon noo ah inaan ka sheekaysano caawa biidnillahi alkariim. soo dhawaada insha allah. aad baan ugu faraxsannahay inaan soo noqono mar labaad. khayr allah ku siiyey cumar, baaraka allahu fiiki. waqti runtii waxaan rajaynayaa in bal caawa inta yaran isla joogno in aan kala faa'iidaysano. iclaanka xalay markaan samaynayay waxaan tilmaamay dabcan inaan ka hadli doono 5 qodob oo keensan karta ama sababta inay dadku kala tagaan ama ay isfuraan ama lamaanihii wada joogay nolosha ku heshiiyey ku midoobay in midowgoodaasi uu noqdo kala bax. hadda waxaad ka warqabtiin ood ogtihiin midowga reer Yurub
yacnaa kontonka sano hadduuna ka badnayn soo jiray in ay dhacday dalkan aan hadda degannahay aan idinkala soo hadlayna ee jasiiraddan ingiriiska ah oo ahaa yacnaa founderskii ama dadkii u bilaabay in ay u ololeeyaan in la helo itixaad maxaan ku idhahdaye isku tag ummad reer galbeed in la helo in ay bilaabeen muddo dhowr sano inay ku qanceen inay ka baxaan yurub oo ay ka goostaan marka waxaa dhacay brexit in ay britain ay ka baxdo ama ingiriisku inuu ka baxo yurubta intiisii kale wax badan runtii waxay keensantay arrintaasi ciriiri badan iyo imtixaan badan ayay arrintaasi keensatay sheekadeenna caawana qayb ayay ka tahay waxaa qayb sida oo kale ka ah covid-19 oo cudurkaa safmarka ah ummad badan dad badan oo waalid iyo walaal iyo saaxiib iyo culummo iyo macallimiin oo aan jecel lahay ay sababtiisa adduunyada kaga guureen ay aakhira aadeen ilaahay subxaana wa tacaala shuhadaha u aqbalo qabrigana allah u nuuro subxaana wa tacaala covid-19 siduu u saameeyey hadday jacayl tahay hadday tahay qoys hadday tahay waxbarasho hadday tahay shaqo hadday tahay noloshii familiga noloshii society-ga reer galbeed ama caalamka oo dhan kasoo bilow china oo la sheego inuu kasoo bilaabmay ilaa uu meel kasta gaadhay waxaa ka warqabtiin markaa lockdown in la galay oo guryaha la isku xidhay oo la yidhi afka ha la xidho oo la yidhi gacmaha ha la maydho oo la yidhi yaan la isku dhawaanin oo masaajidii la xidhay oo shaqooyinkii la fadhiisiiyey oo la yidhi guryaha lagu shaqeeyo oo yaan la is arkin oo yaan la isku dhawaanin weliba dadkan britain wuxuu ku jiraa dalalka aadka runtii yacna aada uu u saameeyey aan idhaahdo covid-19 okay waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysiin talo maxay soo wadaan soo saas maaha hibow waxaa la isweydiinayaa dabcan 5 qodob oo maaragtay furiinka keena ayaan isnidhi waan idinla wadaagaynaa intaana 5ta u gelin waxaan rabaa inaan isweydiino anigii hiba bal inaan yara sheekaysano oo aan isweydiino maxaan ku idhahdaa furiinka hibow okay furiin maxaa laga aaminsan yahay furiin horta muxuu yahay maxaad is leedahay furiin uu yahay alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale walaalayaal furiin waa waxa ilaahay ugu necab yahay handare la fasaxay si ay ummaddu iskugu dhibtoonin si maadaragtay cidhiidhiga lagu jiro ee keensanaya furiinka cidhiidhi kasii daran oo kasii weyn aana loo gelin marka dhinac waa raxmad ilaahay subxaanahu watacaala subxaan allah ilaahay naxariistiisa ayay kamid tahay oo waad aragteen maaragtay diimo waxaa jira aanan furiinka la ogolayn oo mamnuuc ah oo qofku sida aad nolosha ula wadaagto aad ku dhamaysanaysid xaaladaad doontidba ku jiro marka ilaahay raxmadiisa iyo diintan maaragtay waasacnimadeeda waxaa qofka ayaa muhiima badbaadada qofka maskax ahaan inuu caafimaad qabo jir ahaan inuu caafimaad qabo wax kasta oo khatar ku gelinaya waa laga ilaaliyay marka xataa haba ahaato qofka nolosha la wadaagtay oo intaa oo dhan aad la soo noolayd oo maaragtay ilmo isku dhasheen oo nololda soo qaadateen xataa isaga iyo ayada qofkay doontaba aadee labada dhinacba waxaa la fasaxay in aad ka badbaadid inay naftaadu khatar gasho inuu aqligaaga iyo maankaaguna inuu khatar galo marka muhiimadda waxaa la saaray qofka bini-aadanka iyo karaamadiisa iyo in uu ahaado qof ilaahay cibaadadiisa iyo noloshiisa xor u ah oo diiq ku jirin xataa waxaa lagu leeyahay maaragtay walwalka iyo kurbada iyo fikirka badan iyo murugta qofka haysata cibaadada xataa way ka mashquulisaa marka maxay hayday taas waa sida loo jideeyay furiinka sida loogu talagalay laakiin xaqiiqadu maxay tahay sidaas may tahay ma shayga ugu dambeeya oo dhibaata markay nala kulanto waxa ugu dambeeya oon xal aan ka dhigano miyuu yahay furiinku
mise wuxuu yahay shayga ugu horeeya aan ku boodno oo marka laysku dhaco amba laisfahmi waayo isla markaaba dalqadii ay dhacayso oo maaragtay laga fiirsanayn. marka furiinadoo dhan iskuma wada jiraan, inta furiin ee dhacaya iskuma wada jiraan. qaar waxaa jira ay xal u tahay badbaadada labada qof ay xal u tahay. marka labada qof mid unbaa dhibanaa, midkii dhiban ayay xal markaa u noqonaysaa runtii. marka waa kii la jideeyey kaasi. laakiin in badan oo waxaa jirta oo aada welibana u fara badan oonan maad aragtay furiinkii saxda aanan ahayn, oo xataa waxaa ku tusaya inuuna sax ahayn. waa laga shaleeteynayaa, dadkii handaro way isku soo noqonayaan, maad aragtay dalqad labaad baa dhacaysa, dalqadii saddexaad baa la isticmaalayaa. waxa weeyaan lama kala dhammaanayo. xataa qaar ay isla gaadhaan ilaa dalqada saddexaad markay gaadhaan ay culimmada raadiyaan si ay uga badbaadi lahaayeen dalqadaa saddexaad oo uu qofkii ugu noqon lahaa. marka runtii waxyaalo fara badan baa jira, furiinkoo dhan iskuma jiro. waxaan caawa rabnaa inaan isdul taagno furiinka khaladka ku dhacay ya amba lagu degdegay aan dhahno waqtigiisii aanan la joogin ayaan ka hadlaynaa, iyo sida mujtamaceena inta isqabta ee inta wada joogta ay uga badbaadi lahaayeen oo ay uga gaashaan maaragtay gaashaan uga samaysan lahaayeen furiinkaas inuuna ku dhicin. iyo furiinka laftigiisaba in la fahmo oo laga wada hadlo. ya furiinka waxyaalo qaarkood ayaan anigu aan fiiriyey. marka waxaan isiri furiinku dadku maxay xalkii ugu horeeya uga dhigtaan, maxaa sababay in uu marka laysku dhaco amba dhibaata ay dhacdo oo lays jiijiido kadib uu furiinku ka dhaco oo hore ka dhaco, halka la heli lahaa xuluul fara badan amba maaragtay laga fiirsan lahaa amba la sugi lahaa. xataa qofkan aad dhibaatada isku haysiin haddaad waqti isa siisaan ood yar kala tagtaan xataa idinkoona isfurin laga yaabaa inay xal noqoto. marka maxaa loogu degdegayaa oo keensaday mujtamaceenu inay furiinka aada ugu degdegaan? okay, waxaan isweydiinaynaa runtii idinkuna waad soo qori kartiin walaalaha nala socda khayr allah idin siiyo. halkan aan idinka fiirinayaa commentka. dabcan intaay macalimaddu hadlayso baan aniguna halkan fiirini qoraalkiina hadii waa la yidhaahdo. aniga waxaan isleeyahay iga raalli noqda, furiinku iskama yimaada un bilaa sabab, waxbaa keena. anigu markaan ama ninkii ahay ama gabadhii ahay ee aan wax tabanayo, wax sheeganayo, wax tirsanayo, xanuunsanayo, damqanayo, ama morally ha noqoto xanuunkaasi, yacnaa mentally ha noqoto ama physically ha noqdo, abuse ha noqdo oo aan tirsanayo oo qofku maaragtay in yacnaa ama aflagaad ha noqoto. qofkii lamaanahayga ahaa marka aan sharkiisa ka badbaadi waayo, sharkiisu waa maxay marka? waa su-aal isweydiina soo maa. qofka lamaanahaaga sharkaaga ma ka badbaadi karaa? maxaa sharkaaga ah? af adaygii, hadalkii xumaa, gacangaadda iska badaayo, iyadu waa way fogaatayba iyadu moogtahay gacanqaad, gacan adaygii, adiga oo maaragtay comparison lagugu sameeyo dad kale, ku dhiga hadalkii, maqnaashihii, inaan lagu qiimeynin, inaan maaragtay dareemadaadii iyo maaragtay baahiyooyinkaaga, waxaasoo dhan markaad tabanayso ee aad ururiso weliba ururiska wuxuu ku badan yahay gabdhaha. ururiso muxuu noqonayaa markaa? ziyaadaadii waad buuxsamaysaa. markaad buuxsanto waad qarxaysaa markaa. okay, maskaxdayda marka maxaa ku jirta? furiinku markaa wuxuu ii noqonayaa ama aan u arkayaa option, xal iyo dawo aan kaga bixi karo dhibtan aan tabanayo. mayla socotaa? okay, dhibkan aan tabanayaay siduu kasoo bilaabay? xaguu kasoo bilaabay? yaa bilaabay? aniguse qayb ma ku leh dhibka ilaa halkan inuu soo gaaro dhibkan, ilaa aan idhaahdo furiin maahine wax kale dawadayda ma aha. yaa soo gaarsiiyey? anigu qayb ma ku leeyahay? taasaan anigu isleeyahay ma dhici kartaa inaan qayb ku leeyahay furiinka aan anigu raadsanayo, in aan anigu sabab ka ahayba, qaybteed oo aan ahayn un keliya dulmane. haddaan isku arka un dulmane inaan ahay, waxaan leeyahay dee
qofkan ku dulmaya ee daalimka ah ها كفو ka fogo ها أو ها كديرو haddaan arki lahaa laakiin xal ka dhow furiinka oo aan kaga gudbi karo dhibaatooyinkan aan sheeganayo okay meeshaas marka waxaa ku jira ها wada xidhiirku siduu yahay communicationku هذا وين aniga marka aan dhib tabanayo ma sheegi karaa dhibkayga aniga oo qofkii caayin eeg anoo qofkii ku qarxin صح anoo qofkii aflagaadaynin anoo qofkii maxaan ku idhahday aan nolosheeda siiyey صح haye marka hadalkaaga waxaa ku jirta runtii in dhibaatooyin fara badan anoo tirsanaya dhibaatooyinkaana ay isbiirsadeen ya oo ay haddee toole qalbigaygii iyo maskaxdaydii iyo naftaydii ay qaadi karin nacam maxaa sababaya in aad awoodi weydid in dhibtan laga hortago oo bilowgiiba laga wada hadlo wixii markuu hor la qabtuu leeyahay ma og tahay ya culimmaduba way sheegaan dadka isfuraya waxay idhahdeen markay isfurayaan way dacwoodaan wax fara badan bay soo qufaan ay ka hadlaan oy sheegaan waxaa faraha badan le way ka yaabaan lianna waxan hor la qabtuu leeyahay nacam maanta hadduu ninkaagu amba biilkii bixin waayo amba gabadhaadu ay si khaldan kuula dhaqanto nacam haddii uu waxani soo noqnoqdo Xaaskaagu yani. haa maxaa hayday dhibaatadan aad sheegaysid ayay dhalaysaa oo ah in aakhirka furiin lagu dambeeyo laakiin maxaa u diiday labada qof ee isqaba in ay nin walba xad buu leeyahay xadkiisaas laga soo gudbin kama dhigna waad i qabtaa inaad waxaad doontid igu dhihi kartid inaad waxaad doontid igu samayn kartid kama dhigna nacam ma jahli baa keenay ma cabsi baa keenaysaa maxaa keenaya inaan qofka ku idhaahdo no ma qaadan karo waxan iga jooji inaan idhaahdo lianna marka ugu horeysa ee no idhaahdo waxay ii fudaydinaysaa aniga laftigayga in aan naftaydiina badbaadiyey qofkiina badbaadiyey nacam runtii wax weyn qofkan dhibaato ka weyn beri ayuu ku dhacayaa waa sida wadanadeena digtaytaradana haysto iyo dhibaatooyinka ka jira markii ugu horeysa qofkan haddaana loo sacabatuminoo oo maaragtay wax kastaba haye madaxweyne soo dhawow la dhihin dee sidaa dadka uguma tunteen marka xalkey wax ka khaldan yihiin maxaa keensanaya inuu qofku ururiyo waxaasoo dhiba beri toolatiyo la ogyahay in uu xad gaadhayo inuu ka dhaqaaqo guurkii dhannaa iyo reerkii dhannaa iyadoo ilmo joogaan oo nolol dhan oo maaragtay intaasoo sano lasoo qaybtamay qayb waxaan rajaynayaa in aad dabcan casharadeenii hore iyo lagjaradii hore aad ka dhagaysateen waxaa qayb weyn ka ah korsiinta sida laguu soo koriyo sida wax laguu soo baray sida laguu soo tababaray sida wax laguu soo sheegay waxa aad soo arkaysay eeg waxaa la yidhaahdaa fikirka qofka tasawurkiisa imaginationka wuxu uu ku samaysmaa ama cidda samaysa waa meelo kala duwan kow horta waxaa sameeya gurigaad ka soo baxayso aabbiyi hooye waxaad ka aragtay waxay samaysaa imaginationkaaga sawirkaaga sidaad wax u aragto tusaale aan fiicnayn weeyaan laakiin xaqiiqo jirta wey wiil baa xaaskiisa u gacan qaaday markii la weydiiyey waxaa lagu yidhi maxaad xaaskaaga ugu gacan qaaday wuxuu yidhi qofkii iswaalwaala gacan baa lagu fadhiisiyaa waa la sii warsaday waxaa la yidhi maxaa dhacay markuu jawaabayay wuxuu yidhi aniga aabbahay lalama sheekaysan jira muxtaram buu ahaa waa la ixtiraami jiray hooyadee hadday iswaalwaasho aabbahay dhakada ku dhufan jiro marka anigu waxaan arku yidhi aabbahay in uu maaragtay guriga uu ka dhex ahaa nin haddii maaragtay lala sheekaysto arrimaha wax uuna raalli ka ahayn haddii lala yimaado dee meeshoodu dhigi jiro gacan buu ku tuusanaya ha okay maxaad meesha kala soo baxaysaa tasawurkaasi inankaasi wuxuu ka soo qaatay sawir ah guriga haddii aad u baahan tahay inaad noqoto nin wax kala gooya ama maaragtay la ixtiraamo waa inaad adeegsato haddii lagu maqlo hadal lagugu soo cesho waa inaad adeegsato gacan qayb markaa waxaa ka ah tarbiyadii guriga kasoo arkay waxaa qayb kaloo ka ah tasawurkaaga maskaxdaada fikirkaaga sameeya
dugsigaad ka soo baxday iskoolkaad ka soo baxday aada u weyn meeshaad wax ku baratay meeshaad wax ku baratay macalinka wax ku soo barayay hadduu ahaa macalin su-aal ku weydiiya kuu jawaaba iyo hadduu ahaa macalin kuu hanjaba oo kula dagaalama ama gacan kuu qaada oo aaminsan in gacan lagugu edbiyo lagugu toosiyo hadhowta marka aada weynaato adiguna waxay kugu yeelanaysaa raad waxaad arkaysaa dariiqada saxda ee wax lagu toosiyo inay tahay midda xooga marka maxaan dhahnay kow waxaan u baahnay marka hore fikirka inaan saxno wiilku ama ninku siduu gabadh u arkaa female haween siduu u arkaa cagsiguna waa saxiix aada u weyn gabadhu siday nin u aragto waa run hadday u aragto ninka yacna qofay waxay doonto ka samayn karto sidaas ilaa ninkuna u arkay gabadha qof waxuu doona ka samayn karo dee waa laisku jabayaa meeshaas hadhowna waa tan keensanaysa qofku in uu meeshan ka cararo sababtuu meesha uga cararaya waa maxay xumaan buu arkaya waa run furiinka marka xumaan miyaa loo arkaa mise waxaa loo arkaa markay halkaa noqoto waxaa loo arkaa wax fiican oo xal ah dib haddii uu jiro dee waa xal ilaahay baa baneeyayba waa xal furiin aada u weyn laakiin inta aanan furiinka lagu degdegin ma dhici kartaa in horta la isweydiiyo waay baan furiin u rabaa maxaan u rabaa inaan meeshan uga baxo waxbaan dhibsaday sooma hadda counselinka markaan sameyn dabcan qofku dadka counselinka loo sameeya maaha dadka dhibanayaasha un keliya laakiin way ugu badan yihiin okay qofkani lamaanihiisu wuxuu ka tabanayaa inuuna la hadlin yana la hadlin ma aha dee damdame waxaan ka wadaa yana communication inuu la sheekaysanin inuu maaragtay wuxuu sheegin inuu wax badan inuu amuuma yahay qofku inta badanna raggaa lagu sheega oo gabdhuhu ay kaga dacwoodaan okay raggu maxay ku dacwoodaan inay gabadhu qaylo badan tahay dagaal badan tahay ma garanaysaa saas oo kale okay waxyaabahan oo dhan ma tasawuri karaa qofku in uu bedeli karo ama diyaar ma u yahay inuu bedelo su-aasha is weydiinayna dadka weydiinaya way laftigeeda diyaar ma loo yahay in la bedelo mise keliya inaad ka baxsato qofkan weliba dadku markay isla joogaan 10 sano 15 sano waayo caruur baa la isku dhalay noloshii da-dii baa kortay waxyaabo badan oo ay dhici karto shalay in la hayay inaan maanta la haynin baa dhici karta أنا waxaan isweydiinayaa Axmed waxaan isweydiinayaa qofka bini aadanka hadii la yiraahdo labadaada lugood ay ku socotid lug baa nabar baabad qabtaaba waa la yiraahdaba ma waabad qabtaaba xubin baa martay ha lug baa nabarkaaga yaala nabarkan wuxuu u baahan yahay in la dhayo in la nadiifiyo in maxay hay'ad daawada caynkaaga lagu shubo in waxa lagu sameeyo ya xanuun uu ku hayaa waa run laakiin adigu ma ku boodiyo ma orani in xanuunkan faraha badan la haya ma qaadi kare lugta iga gooya lugtan dambe iga gooya ma oran kartaa qofku ma oranayo waa caadi jawaabtu inuu yiraahdo maya dhakhtarku ka warsugi wuxuu leeyahay maxaa kale xal leeyahay sidee kale loo daweyn karaa dhakhtarkaana sheegaya in lugtan hadeed rajo ay lahayn inuu amba la gooynayo halkii ugu dambeeyo isagu ku badbaadi lahaa ay tahay ma garatay marka furiinku waa meeshii ugu dambeysay maxaa loo soo raray wixii ugu dambeeyay maxaa inta la soo raray halka hore loo keenay weeyaan horta inaan dadka aan fahansiino ayaguna nala fahmaan su-aasha aan isweydiinayna waa taa waxa meeshii ugu dambeysay jooga maxaa loo soo rarayaa kaba soo qaad mushtar baa leedahay dukaan baa kuu furan bakhaara kuu furan in ma aragtay dhibaato amba recession amba covid kan imika ayaaba la galayba wax ka gata male suuqi hoos buu dhacay adiga ma inta soo dhaqaaqay dukaankii ilbaabada ma iskugu xidhi ya adoo macdaarkaagii ku camran yahay oo wax walba kuugu dhex jiraan ilbaabkan xiraya xal kale male meeshii ugu dambeysay ma gaari kartaa waa maya waxa sameynaysaa waa dadaalaysaa sidaad maaragtay qiimo jabin baad sameeyni in maaragtay Facebook aad wax ku gadi siyaabo kale ayaa wax ku gadi waxaad ku dadaali inaad alaabtaadii qaado oo wareejisid oo dadka ku tiraadiyana guryahan iigu kaani idinku wax badan ayaad raadinaysaa optionad raadin kara businesskaagii waad ku dadaalaysaa inaad badbaadisid jirkaagii waad ku dadaalaysaa inaad badbaadisid oo daawo u raadsatid oo caafimaad la doontid oo meel walba la rabtid la martid ma garan
ilmahaagii kadaalig waa ku dadaalaysaa laakiin qof lagu yidhi noloshaadii buu ka mid yahay oo qeyb weyn welibana ka yahay oo ilaahay ku tilmaamay libaas inay isku tihiin نعم maxaa keenay in tartiibtaas wax loo qabanoo iyada markay guurka ay timaado shayga ugu dambeeya loogu boodaa guurkaan waxaan isweydiiyaa ma qahro kale ayuu saaray oo isagu marka isaga lala tacaala waa wax kale guurku ma planet mars baa la joogaa waa maya marka kalena meel kale ayaa la joogaa waxbarashadii baa u sabraysaa businesskii baad u sabraysaa ilmihii kursiintiisii baad u sabraysaa waxbaad ka bedelaysaa waad dadaalaysaa waa la kacakufaysaa dib wixii kaaga yimaada waxa weeyaan xal baad raadinaysaa dadkaadii caawiya leedahay ilmahaagii waxbarashadiisii macalimiin baad u qabanaysaa businesskaagii dad kale ayaad maaragtay la kaashanaysaa haddaad afgaran weydin war wax kasta xal baad u raadinaysaa laakiin guurkii markay noqoto qofkii wuxuu ku boodayaa wiil iyo gabadhba waxay ahaadaanba qofkii wuxuu ku boodayaa meeshii ugu dambaysay taas ayaan rabnaa mujtamac iyo inaan isla fahno ayagoon ka dalbanayna inay waxa keenay inay nala wadaagaan soo qoraan insha allah inta aan falaqaynayno صح ويان أركتدي نية دريمهن إن شاء الله تعالى سو قرأ سو قد بيه بارك الله فيكم إن هدان أصلا نقضى مركا عليس يضع كوفيد كوكاني إن وحالة الماما يا رنتي أوكي عليسك أوه الرأي إلا الشيغو وعاثماتك oo qofkii ama lamaanii ha noqdaan ama ilmihii ha noqdaane qoyskii haddii uu covidkii ku dhaco waxaa la yidhi waa in la iskarantiilo eg oo qofkii uu qolkaaga xidhnaado oo halkaa loogu geeyo raashinkiisii iyo cunadiisii iyo maaragtay maskaxiyan qofka marka maxaa soo koraya hibo عديري بريشر سؤال بدهم بيسويدين يا شالي وافي أنا شالي حتى ضد كاركود والله قلنا عايز هذا و طبعا ويسبر كي شيطان كي ما يسكت جلس هما أوكي عافمات كي مركا محو كان سنة يا مركا عافمات كي هدي وطابتي وحو كان سنة يا إنه رقالي طابته حالا جاي بقف كني إنه شقيني أو قفك وكنت هذين هي إنكمكم قولي oo ay dhici karta lamaanuhu labaduba in ay wada shaqayn jireen oo ay isku khaasatan marka qurbaha la joogo la isku maxaan ku dhadayay kaashanayay wada noolaashaha qurbuhu ma sahlana dhaqaale ahaan iyo kharashkiisuna ma sahlana aad bay maaragtay noloshu qaali u tahay weliba hadda waqtiga covidka markuu dhacay dee wax walba maaragtay qaali bay sii noqdeen muxuu keensanayaa marka runtii عديدي بدن قيسسكي مركب محاد عاي مركب لوك داون ليدي ولا اسكو سوحلو ايوه اوكي محالة الماما يا ستريس بدن ستريس كو كيمت اول اللي اسمه قول هيبو قوري ولا قو سوهيني راشن بقى لقو عني ولا سيحاني صباح دي ولا بحي والد كنا شقي بحيين لمانه المهم اسكول بيقاري لكن هل كان يمكن محالي هل كان يمكن محالي لي وده جوه لقدام ولا بدين هي علمه اوكي qoysaska qaarkood ilmo maasha allah iyo maaragtay dhowri leeyihiin okay africa lama joogo oo gargaar badan iyo taakulayn badan iyo mehlis halkan waxay noqotay labadiina kaliya inaad isku kaashatiin hawshii guriga hawshii ilmaha hawshii shaqadii hawshii dhaqaalihii stresskii culayskii maxaan ku dhadayay uu keensanayay traumagii marka wax badan marka muxuu taabtay ama uu saameeyey caafimaadkii baan dhahnay dhaqaalihii markuu saameeyey waxyaabaha la isku dilay ayay ka mid tahay maraan baadhbaadhayay researchyada laga sameeyey qolo la yidhaahdo law firm oo la dhaho stewards ba waxay yidhaahdeen wuxuu kacay furiinka la socda wuxuu kacay boqolkiiba 122 122% ayuu sare u kacay waxay ka warramay markaa UK dabcan waxaa la isku qabsaday la isku furay waxa weeye waxyaabaha la tilmaamaya waxaa ka mid ah maalan
hawsha guriga oo aan la wada qaban karin ama qof kaliya kusoo dhacay. hawsha guriga waa mid, hawshii ilmaha iyo waxbarashadoodii oo ilmuhu weliba markay yaryar yihiin ay u baahan yihiin attention badan, waa la garta soo maha. marka arrintaasi bay waxay dhaheen waxay keentay cidhiidhi badan oo ay dadkii maaragtay isfahmi waayaan lamaanihi. marka arrinta covidku wax sahlan ma aha. dadkeenuna in badan waxaa dhici karta in aynan runtii yani siday uga bixi lahaayeen inaan laga wada sheekaysanan. ila wax lagu talagalay mayna wax ku qabsaday, laakiin iyadoo la wada joogo waa laga wada communicate garin kara. haddaan marka u gudbo dee ma dhinaca negativeka un baan ka sheegnaa, dhinaca positiveka covidku ma dhici kartaa in uu keeno positive laftigeeda waa la sheegay. maxaa la yidhi dadkaa isbartay laisma qonaw waa la isbartay, waqti baa la isku helay. rabadaanna way ahayd bilowgii markaa soo socday waa la wada tukaday, qur-aan baa la akhristay. absolutely aad bay janis waxaa la isku helay. xataa carruurta waxay dhaheen rabadaankii ugu fiicnaa qaarkood. aan anigu intaan maqlay rabadaankii ugu fiicnaa buu yahay because aabihii iyo hooyadii waa la wada jooga, reerkii oo dhan baa wada jooga. nacam. marka dadka qaarkood runtii aad bay uga faa'iidaysteen, maxaa yeelay fursad bay isku heleen ay ku wada fariistaan, fursad bay isku heleen ay ku sheekaystaan, fursad bay isku heleen ay discoveries ku sameeyaan, ishelaan iyagu, isgartaan, isfahmaan, yacna consideration isku sameeyaan. oo sidan kuma malaynaynin, sidan ma filaynin, sidan ma u malaynaynin nolosha inay tahay culayskan inaad hayso. absolutely ma filay. yacna waxaa la sheegayaa rag badan, halkan baan hambalyo uga diraya runtii, rag badan oo inta badan banaanka ku maqnaa in ay aad maaragtay u dareemeen guriga markii la isku xanibay. ila qofaba rabi guriga inuu fadhiistay waa la isku xanibay, cudur kasoo maaragtay kasoo dhuuntaa la yidhi, inay arkeen gabdhuhu ama xaasasku hawsha ay guriga ka hayaan. runtii waxaa halkan ka hambalyeynaya runtii gabdhaha u hambaliyeeyey raggooda ee yidhi thank you, waa mahadsan tahay inaad wax nala qabato, inaad wax nala samayso, inaad aragto culayska aan ku jiro. niman baa isoo wacay runtii sheegaya in markay xaasasku ay wax la qabteen ay xaasasku mahadnaqeen, bal kaado u keeneen, hadiyad u keeneen. yaa salaam, yaa heli karaa. qofka hadduu wixii qaban jirin waa in markuu bilaabo waa in loo waa in maaha wixii caadigii u qabanaya hawshiisiibu qabanaya inaan idhaahno maaha. kelmadda la adeegsaday ee dhibta badan laa shukra cala alwaajib. laa shukra cala alwaajib marka qofka niyad jabi ku ridaysaa laa shukra cala alwaajib. ma waa lagu soo dhaweynaya. haddaan u noqdo su-aashaydii hore oo ah maxaa keenay inay dadku ku degdegaan furiinka, maadaamaan caawa furiin aan falanqaynayno oon ka hadlayno. aniga waxyaalaha maskaxdeeda kusoo dhacayaa waxay tahay in shayga ugu yar cilmi loo qabo uu yahayba guurku. horta taas baan dhihi karaa. guurku wuxuuba noqdayba shayga loogu aqoon og yahay ugu yar. nacam ma aqaanaa si fiican weli waxaan ka wadaa nacam shayga barasho iyo cilmi loo doonto shayga ugu yaraa. ilmihii aan sheegaya waa la badbaadiyaan lahaa, caafimaadkii waa laga shaqeeyaan lahaa, businesskii waa la kobciyaan lahaa. waxaasoo dhan dadku way u fududahay inay raadsadaan, inay aqoonteeda raadsadaan. marka maxay hayda laakiin guur markaad tidhaahdid dee axmedow waxaan odhan karnaa labadeynu inaan ka jawaabi karno inay dadku dhalinyarta jiilka soo kacaysa badankoogu maaha oo dadki isbedel baa ku socda oo buugaan bay akhrisanayaan, jaamacaday galeen, waxbay qabsanayaan, maaragtay guruubiyay ku jiraan. laakiin dadka badankooga cumuuman guud ahaan waxaad moodaa inay dadku aynan guurka ahmiyad gaara ay siinoo waxbarasho aynan u aadin. guurka adooban waxbarasho u aadin ayaa waxaad baran kartaa wixii guurka badbaadinaya oo dhan, wixii guurka hagaajinaya oo dhan baad baran kartaa. maxaad baran kartaa maxaa hayday adigu naftaada inay isbedeshid. horumarka naftaada sooma fiicna, waa wax fiican moogta. qofna waxba uguma taraysa, adaa naftaada wax u qabtay.
laakiin wanaaga aad naftaada wanaajinaysid waxay gaadhaysaa in ay raadeynaysaa ummadda kula nool oo xaaskaagu amba ninkaagu uu uga horeeyo. ilmahaaga waad dhasho uu ku xanuujinaya waabad dhihi kartaaba, laakiin qofka aad nolosha wadaagteen qof family kula ama ya walaalkaa maaha, in ilmahaagii maaha, waa qof ajaanib shalay kaa ahaa ood maanta nolol wada qaadateen. subxaan allah. shalaytoon wuxuu kaa ahaa qof fog ayuu kaa ahaa ya xataa keli meel lamaad joogsan karin, laakiin maanta waxaad isku noqoteen in maaragtay hal qof baad isku noqoteen waad isbuuxiseen. marka waxaaba xaq u leh in aan qofkan shalay iga fogaay maanta aan sidaas iskugu dhownahay inaan barto, inaan ilmihii jidhkaygiibuu kasoo go-o xataa naxariistii waalidnimo ayaaban wax ugu qabanaya, laakiin qofkan ila nool inaan barto ayaa muhiim ah. marka waxaan dhihi lahaa aqoonta iyo jahliga xagga guurka naga haya ayaad moodaa waxyaalo fara badan inay adkeeyeen ya marka haddii laga bilaabo waxyaalo yaryaroo iska fudud ya sida maqalka dhegaysigaagu ma fiican yihin, qaabkeed wax u dhegaysataa, sideed qofkan u maqashaa. hadduu intaa yar keliya lagaa helo wallahi guurkaaga wax weyn ba u taraysaa ya gacan furnaanta haddii lagaa helo ya qofkaaga wax weyn ayay u taraysaa. in naxariista xataa naxariista haddaa afkaaga iyo hadalkaaga iyo kelmadaha kaa soo baxaya kelmada naxariis la yihiin, waa mahadsan tahay, ilaahay khayra ku siiyo, iisoo fadhiiso, waa daashay, in madaxa maaragtay may annakaad noo fikiraysaa, annakaad noo socotaa, intaad noo dadaalaysa waa ku mahadsan tahay, adeega markaad soo qabatid oo kale ya ilaahay khayra ku siiyo, waxaan wadhan anukan qofka encouragementka iyo hadalada wanaagsan iyo ilaahay jannada ha ku geeyo iyo ilaahay waxaan kaaga baryay khayr, wax kasta oo wanaagsan in qofka bilaadanka way dhisaysaa, qofka bilaadanka way wanaajinaysaa, adigana sadaqay ku tahay. oo hadalkii wanaagsanaa waa sadaqo, kelmada wanaagsan waa sadaqo, wax kale bay tiyoona la gaadhin. marka furiinka waxa loo soo dadejinayo ee kulkaaba loogu boodayo, anu waxaan dhihi lahaa qofkan horta guurka guud ahaan aragtida guurka laga qabo ayaa jahli badan ku jira ya iyo hadday doonto wayba khaldan tahayba, aragtida guurka ayaaba khaldanba jawharo marmar. waxaa dhici karta hibo in qofku uu dabcan ma filayo inuu jiro qof gurigiisu inuu ka burburo rabo maya atoon, laakiin qofku wuxuu rabaa dhibaato guriga ka dhaxaysata lamaanihiisa uu ku hayo inuu ka baxo. dhibaatadiibaa marka wuxuuna raadsanaynin xuluusha u furan. waxaa jira fursado uu heli karo uu xalka ku samayn karo. isagaa marka wuxuu isku dayayaa isagu inuu xalliyo keliya bas. meesha dhib ku jira markaas dhibkana isagaa keena, isagaana raba inuu xalliyo. okay, haddii uu buugaan qofku raadsan lahaa, haddii uu soo raadin lahaa dad khuburo ah, haddii uu la iman lahaa dabcan uu xallisan lahaa. laakiin aniga keligay baa raba in aan ma raba inay cid kali afaarahayga ogaato, dhibkiina waan ku dhex jiraa, xal kuma helaysa. dhalinyaro badan, rag badan, dumar badan oo sidaa u fikiraya ayaa jira. qaarkood aniga waa wada hadallayba oo wuxuu ku leeyahay oo aniga qofka kale anigii xaaskayga iskii ka fahansiinaya, aniga problemka ii xalinaya waa ayo. okay, adigu problemka aad ku jirto waxaa dhici karta qof diraaseeyey oo maaragtay khabiir ku ah oo kuu sheegi kara ilo dariiqyo aad kaga bixi karta inuu jiro. ilaa adu maad diraasaynin waxaan, psychology ahaan maad baranin, dabeecad ahaan maad baranin, cilmi ahaanna umaad baranin. khilaafaadka iyo qofka waxa aad ku kala duwan tihiin eeg. tusaale iminka qofna uu gacan furan yahay, qofna uu gacan laaban yahay eeg. yacna gacan adayg iyo gacan furnaan waa waxyaabaha keena khilaafka, waa waxyaabaha lagu kala ashkatoodo. ninka uu gabadha kaga ashkatoodo, gabadhuna ay ninka kaga dacwoto ee gaadha ilaa maaragtay faamiliyada gaadha. marka taasoo kale maxaad u baahan tahay? adigu waxaad isku aragtaa inaad saxan tahay markaad nin tahay, markaad gabar tahayna waxaad isku aragtaa inaad saxan tahay. marnaba iskuma arkaysa inaad qaldan tahay, maba jiraba qof isku arkay inuu qaldan yahay.
sidaas awgeed marka lagu waraysto ee su-aalo lagu weydiiyo ee dhaqaalo lagaa warsado ee lagu yidhahdo sideed dhaqaalaha yani qodobada aan tirinaynay ku jirtaa هذا وين ee shanta ah ee la isku dilo ee ugu dambayntana la isku furo sababtu waa maxay dhaqaalaha maxaan ka aaminsanahay lacagta maxaan ka aaminsanahay ma lacagtaa qiimo badan mise ninkaa qiimo badan ma lacagtaa qiimo badan mise gabadhaa qiimo badan labadan midkee qiimo badan ma isweydiisa weli انت انا قرار قاعدين ha qofkan lacag baad isku qabateen soo maha waxaa idin dhex yaalla qofkii noloshaada aad ku aamintay هذا وين iyo adigii lacag baa idin dhex taalo waa sida inta badan dhacda lacag baa dhexdiina taalla oo aad isku haysiin lacagtii maydaan wada faysgaraynin labadiinu labadiinoo sidaan usoo wadaagna lacagtii halkan lama dhigin هذا وين seen lacagtaan wada aragnaa laysma weydiinin lacagtaan yaa keena laysma weydiinin say ku timiday laysma weydiinin nin kasta wuxuu ku doodaya lacag anaa soo dhiiday anaa kan sameeyey oo qof kale wuxuu ku ashkatay inay waxaan kusoo daalay baad bixinaysaa oo aniga maaragtay igama qaadanaysid amar iyo tali iyo fasax iyo ima weydiinaysa waxa saas awgeed baa waxay ku timiday la soco gabdho badan waxay ku ashkatoodaan nimanku romantic ma aha romantiga marka laga fiiriyo dhinaca waxbixinta nimanku wax ma bixiyaan bigacladii waa savers way ururiyaan nimankuna maxay ku dacwoodaan gabdhuhu waa spenders lacagtay bixiyaan lacagta sidaan ugu soo daalay kama warqabto ma qiimeynaysa waa iska bixinaysaa kan bay iibinaysaa kan bay keenaysaa halkan bay diraysaa maxay kan bay samaynaysaa maxaa dhacaysa markaa in inamada qaarkood maxay yidhaahdaan gabadh aan shaqaysanin anigu ma raba inaan gurso weliba waa jiilka dhalinyarada gabadh aan shaqaysanin anigu ma rabo inaan guursado adeer sabab dee ma garanayso kuleeya valuega lacagto ay leedahay weligeed ba lacag baa la siin jiray weligeed ba abeed baa maaragtay halkan u samaynayay waxay iska rabtaa un berri markaad guursatana wax kastaba inaad lixda inaad kacayso ood lixdeeda kala imanayso 12 saacadood 3 saacadood oo safar 15 saacadood maalintii inaad soo rafaadayso waxaasoo dhan iyada uguma jirto kuleeyahay ajenda waxaa kaloo jira qofka soo shaqeeyey lacagta uu keenay way xanuujinaysaa ilaahay run jecele yaa maadaamay xanuujinayso haddii qofka kale u garowsado u yidhaahdo waan fahmayaa waxaan waa wixii aad soo shaqaysay eed subax kasta u kala haysay eed u daashay ma garatay in xoogaa maaragtay adigoona xisaabta ku darsanaya baahidayada bal si fiican haanu maamulno iyo sidii plan han samaysano budget plan markasta la samaysto handare laga wada sheekaysto plankii bishan maxaa noo hirgalay maxaa maaragtay naga xumaaday sidee tartiibtaas ayay nolosha ku hagaagtaa laakiin haddaan amar uun bixinayno haddii sidan hala yeelo uun de qofka kale resistance buu samaynaya uu ku jilib dhigayaa qofka kale wuxuu ku dadaalayaa inuu maaragtay isna sidiisa in la yeelo uu ku dadaalo ma garatay marka maxay furiinkii annagoo kusoo noqonaynaa xoolaha iyo maalka iyo ubadka iyo horumar wax badan ayaa soo hoosgalay sababa inuu furiinku yimaado marka lixda qodob shanta qodob aan rabno caawa inaan ka sheekaysano waxaa ugu horeeya in maaragtay marka hal la qorto qodobkan kii ugu horeeyay nacam waxaa ugu horeeya in laga sinaado waxyaalaha qaarkood in isku mid si mida loo waajaho adigii sheegay hadda xoolaha marka maxay hayday equality isku mid in laga noqdo oo laga wada sheekaysto oo la odhan qofkan uun ha helo qofkanna ha waayo marka haddii taas cadaalada loo eego iyo miisaan haddii loo eego way fiicnaan lahayd kaba soo qaad shaqada aqalka laga qabanayo iyo hawsha aqalka laga qabanayo qof keliya hadday ku dhacdo oo cimrigiisa ay haysato qofkaasi way la degaysaa ma garatay in waqtiga haddii firaaqo badan uu qof haysto qofna uu mashquul fara badan uu yahay oo aqalkii shaqadii ilmihii way la degaysaa taas laftigeega way keenaysaa cadaaladii ayaa soo hoos galaysa haddii qof uun maanta ka dhan la yidhahdo waa khaldan tahay
adigu wax ma fahantid adigu wax ma garanaysid adigu sidan baa tahay la yiraahdo oo maanta ka dhawnan isaga eeda la saaro waxa weeyaan qofkaasina qoys iyo rajuu beelaya nolosha uu ku jiro kuma raaxaysan karayo ma garatay in maxaa kaloo ku jira xoolihii baan sheegnay waqtigii baan sheegnay shaqadii baan sheegnay cadaaladii waan sheegnay oo waxyaalo fara badan in loo cadaalad falo ayaa la rabaa oo cadaalad laga helo cadaaladaasi waxaan u malaynayaa in ay u baahan tahay qodobkaasi si gaar ah in la isku dul taago maxaa looga baahan yahay cadaalad yaa u baahan horta cadaalad cadaalad marka qoys laga hadlayo sidee loogu baahan yahay cadaalad inta badan dadku waxay tilmaamaan marka ay qoysas jiraan uun baa la raadiyaa cadaaladda laakiin qoyska laftigiisa ee jiraba ee maaragtay lamaanaha ah intuuna qoysku badan oo qoysas kale ayna soo ziyaadin qoyskan u horeeyaa horta wuxuu u baahan yahay cadaalad صح icdilu huwa aqrabu litaqwa ilaahay waa kale subxaana wa tacaala marka adigaa lagaa rabaa inaad cadaalad fasho oo cadaalad marka aad falayso waa maxay miisaanka صح aad wax ku xukumayso inaad si cadaalad u xukumo markaad wax bixinayso si cadaalad aad wax bixiso xaaskaaga ilmahaaga ninkaaga ilmahaaga xashada iyo iilashada inaad iska ilaaliso waxyaabo qaarkood waxaa jirta iyada laftigeeda u baahan in la isdul taago oo ah dadkuna aad ay u dareemaan weliba ilmuhu ay aad u dareemaan ilmo dhowra markay jiraan oo isugu jira wiilal iyo gabdho in lasoo kala hormarsado soo kala dhawaysto lasoo kala dhawaysto iyagaa kaa samaystay soomaalida niyadda ku sasabtaan ilmuhu siduu kuugu dhaga nugul yahay baad ugu kala dhowdahay laakiin sax ma noqonaysaa markaa subxaan allah marka waxay u baahan tahay runtii in aan baranno ilmaha sidee loogu cadaalad falaa oo mid kastaba xaqa uu kugu leeyahay ka waalid ahaan adiga oo mid uga siyaadinaynin aad ugu samayn kartaa cadaalad markaan taa ka gudubno qofka isagu la reero isagu xaasaska leh isagana maxaa looga baahanya meeshaas cadaalad baa looga baahanya waa kasii culus tahay waa ziyaado okay hawshaa culus ayadana waxaa loo baahan yahay maxaan nidhi lacagtii maxaan sheegnay waqtigii maxaan sheegnay cadaaladii waxqabadkii guriga marka ay laba tahay hawsha way kasii badan tahay laakiin adigaa waxaa lagaa rabaa in aad sidaad ilmaha marka hore uga fikiraysa inaad u cadaalad fasho inaad u barato cadaalad falkooda aad u barato xaasaska saad uga cadaalad fali lahayd marka qodobkaa la isku qabsado meelahaasi way jirtaa aad haddaan soo dhexgelino marka nolosha oo meelaha ishuyada keena conflictiga dhaliya kabacdina furiin isku bedela ayaa waxaa ka mid a inaad cid u iilato cid u badato in aanad qiimaynin qofka maxaan ku radayay kula nool in wax dhibaya qofkani wax uu dhibsanayo inaad samayso waxbuu dhibsadaa qofkani wuu kuu sheegay in uu dhibsado laakiin adu maad joojin waad sii wadaa haddaan rabo inaan ku xanuujiyana haddayba iga tahay runtii maadaamaan ogahay qofkan inay shaygan uu dhibayo haddaan u samaynayo inaan ku xanuujiyo ka waran ya qayladuuba dhibsadaaba kaba soo qaad amba wuxuu dhibsadaa aamusnaanta qaylo unba badanka laga hadlay aamusnaantuna waa mid kaloo jirta inuu qofku kuu aamusuu kulaba hadli waayo uu maaragtay kuuba furi waayo laftigeega dhibaatadeeday leedahay marka haddii aan ogaado inaan kuu aamuso oon kula hadli waayo inay ku xanuujinayso waan isticmaali sooma maalintaan u baahdo waxaa la isweydiinaya marka maxaad u isticmaalaysaa meeshaas la socda waxaa ku jira satisfaction waxaa la feeling dareenkan ayaa adiga kaa dhigaya ileen xanuun baad dareemaysaa markaan qofkana waxaad dareentay in uu sidan ku xanuunsanayo waxaad rabtaa inaad ku xanuujiso soo maha waxay dhahaan sababta aad ugu xanuujinaysa maxay tahay markaad aragto qofka inaad xanuujisay adiga waxaad habi baa tahay waad iska hoos marisay waa qof aad dagaalamaysiinoo caruurnimadii ma garan dhulka
dhulka iska hoos marisid habbi baa tahay inan qofku waa ka laakiin waxaa lagu leeyahay cashiradeenana way ku jirtaa jawharow waa nakii sheegi jirnay subxaan allah ani markaan fikradaas aan akhristay wallahi waa itaabatay waxa itaabtay waxa weeyaan qofka waxaa lagu leeyahay haddii aad og tahay oo garanaysa inuu aad gar ka leedahay oo isagu khaldan yahay xataa ha ku cadaynin 100% inuu maaragtay khaladka isagu 100% leeyahay waxaad u samaysaa baa lagu leeyahay luuq yar uu ka baxo wadada ha ku cidhiidhin luuq yar u samee ha ku wada xirin meesha corner hal garin baa la yiraahdaa carruurta taqaani haddii corner aad gelisid gees hadaad gelisid qofkii inuu sii rafto uu sii dagaalamo uu wax ka daran uu sii dhigo baa dhici karta laakiin waxaas odhanaysaa waxaan u maleeyaa in aanad ugu talagelin waxaan laakiin maad aragtay sabab kale ay keentay ya daahistaad iga daahday aan ka cadhooday dee haddii ii sheeg hadday basasku iyo waddadu ay xidhnayd ii sheeg hadda adaa u tuuraya moogta marka wuxuu odhanayaa waa run basaskii baa xidhnaa waddaan soo maraan waayo waxaan kaaga daahay adi waxaad diidan tahay inuu qofkii si qaawan ma aragtay in loogu cadeeyo inuu khaldan yahay subxaan allah maxaa markaa looga socdaa maaha in loo qarinayo oo Soomaalidu waxaas oo kale ma maqli karto qofka ha lagu cadeeyo warka iyo runta ha la sheegay iyo waxaas aan jecelnahay ku qarxida ayaan jecelnahay marka waxaa lagu leeyahay taas maaha waxaa dhowranaysaa waa qalbiga qofkaaga qalbigiisa ayaa dhowranaysaa subxaan allah ya ii sheeg anigu waan ka cadhooday inaad ballantii iyo aad iman weydid inaad iga soo daahday ii sheeg hadday basasku waddada ku xirmeen baad la haysaa ii sheeg haddii aad tagsi weyday ya waxa ku daahiyay ii sheeg marka qofkii waxyaalihii aad u tuurtuurtay ayuu mid ku boodayaa ma garatay jaanis buu helay marka waxa weeyaan isagiina nafis buu dareemaya subxaan allah neef yar baa xoogaa ma aragtay naqas yar baa xoogaa u nafisayaa waxaan isleeyahay aad baad u mahadsan tahay macalimiintiibu khayr allah hadishay walaalaha nala soo wadaagay walaal baa soo qoray ka waran amar ku taaglaynta ka imaanaysa xaaska dabcan waa arrintaan sheegaynay hadalkii handadaadii qayladii maxaan ku dhahdayay hanjabaadii qofka maaragtay la handaday marka waa waxaan fiicnayn runtii oo loo baahan yahay si kale in loo isticmaali haddii kale qofkuu sii carari especially ninka haddii la handado haddii qaylo haddii la canaanto ninku canaanta ma jecla ninku maaha nin Soomaaliya kama hadlaya lab baan ka hadlaya canaan waxa la yidhaahdo ma jecla sababtu waa maxay waxaa la yidhi from psychology perspective markuu yaraayuu soo korayay hooyadii baa canaanan jirtay marka waxaa la yidhi ma rabo xaas isagana maaragtay marka uu la nool yahay ee dee nin weya hadeeto in la canaanto okay waxay kaloo soo qoreen walaaluhu dadka kala fog dad ku kala nool مثلا geeska Afrika iyo Mareykan ama Yurub ku kala nool oo isqaba marka dacwada marka waxay ka imaanaysaa sida walaashu ay soo qortay xidhiidhkii yacna inaan telefoon la isku wacaynin in aan maaragtay la isku warramaynin in aan la sheekaysanaynin in aan wax la wadaagaynin arrintaas runtii waxay u baahan tahay labaduba inay isweydiiyaan maxaa la isku guursaday waa mid labo in la isweydiiyo duruufta lagu jiro oo aan qof u eedaynin laakiin la fiiriyo talow xaaladiisu waa sidee xaaladeedu waa sidee la isku dulqaato lagu heshiiyo waqtiyo la soo wada xidhiidho oo maxaan ku dhahdaayay qofka kale uu sugayo maadaama uu la kala fog yahay ogaada waxaad ku darsataa kala fogaanshuhu wuxuu keenayaa waswaas iyo shaki iyo ma arkaysid adigu qofkii lama socotid ilaahay baa arkaya laakiin shaydaan baa dhigaha kaala hadlay oo hadduu halkan maray oo hadday halkan martay oo hadday waxaan samaysay hadduu waxaan la kulmay haddii yacna waxaasoo dhan waa waxa keensada in uu qofka maaragtay uu kaasii fogeeyo ama uu kugu diro oo aad uga shakiro kala fogaanshahaasi aad buu u dhib badan yahay aad baanan uga talinaa runtii haddii la awoodi karo inta la isku imaan karo in la isku yimaado xorriyadda ayuu qof soo qoray dib ma loola noqon karaa xorriyadaada dib ma ula soo noqon kartaa yaad kala noqon xorriyad wixii kaa qaatay de kolkaa ku soo celiyo oo qofkaa soo qoray xorriyadda aad la noqonaysa ha soo sharxo wuxuu ka wadaa
ciddaad xorriyadda kala noqonayso. waxaan maya xorriyadda nacam ku soco. waa ani waxaan isleeyahay xorriyadda maaragtay sida laysku caburinayo oo qofka kolba in yar amar nolol kalaa la gelin karaa uuna ku faraxsanayn ma garatay waxyaalo badan uunan rabin inuu sameeyo iyo qaab uunan rabin inuu u noolaado ayaa la gelin karaa marka xorriyad la-aan buu qofkii noqonayaa haddii decision makingkii qaraarkii la wada qaadanayay oo labada qofba waxay u wada joogaan inay qaraar wada qaataan ay wada tashadaan haddii laga qaado xorriyadii buu beelaya awoodii haddii laga qaado xorriyadii buu beelaya ya identitygiisii hadduu waayo xorriyadii buu beelaya wuxuu aaminsanaa hadduu waayo ha xorriyadii buu marka waxyaalo fara badan baa soo hoos galaya xorriyadda iyadaabaa topic weyn ah runtii laakiin in la soo ceshado xorriyadii kolka hore waxaa ka fiican inaanad qofkan addoon aanad u noqon ya qodobka labaad weyaan hiboy waxay soo galaysa xorriyadda oo ah power. powerka marka maxaa ku hoos jira waxaa ku hoos jira waxyaabaha furiinka keena 5 qodob baa sheegaynay qodob waxaan rabnaa in aan dabcan sharxno oon dhex gelino nolosheenna sida aan u noolahay. kii hore wuxuu ahaa equality soo maaha kani waxa weeye qodobka labaad lagama yaabo caawa inaan wada dhamaystiri karno hameen kale ayaan sii dhamaystirayna insha allah. power awooddaasi marka waa maxay leadership hoggaanki maantana waxaad moodaa hoggaan marka la yidhaahdo hameen waxaa jirtay anigii macallimiintii aan gallay maxaan ku idhahdaa club house oo aan ka qayb qaadanay dood la isweydiinayo arrintan la xidhiidha hoggaanka marka waxaa aada isugu laaqmay leadershipkii iyo decision makingkii hoggaankii iyo go-aan qaadashadii meel baa marka ay isugu soo ururtay ah anigii baa wixii isku wada ah anaana hoggaamin anaana go-aankii qaadan marka runtii aad bay u dhib badantay marka arrintan taasi kama dhacdo un guurka keliya kama dhacdo jawharo u fiirso xataa maamulka masaajideena way ka dhacdaa maamulka santaradeenna way ka dhacdaa in maaragtay wax kastoo mas-uuliyad ay soo hoos galayso laba qof haddii mas-uul lagaaga dhigo qofku waxay u badan tahay in yaroo ilaahay u naxariista mooyaan waxay u badan tahay inuu isagu amarkii qaato inuu isagu leaderkii noqdo leader waaba tahay horta qofna kuguma haysto laakiin meeshay wax ka xumaanayaan waxa weeye decision makingkii decisionkan dadkan waxaa ammaanadooda aada u haysaa inaad amarka adigu u qaadatid booskooga ilaa madaxweynaha gaadhaysaa wadan dhan ninka haysta baa wadan dhan intaayoo malyuun ay ku nooshahay buu keligii u fikirayaa uu keligii maaragtay qaraar u qaadanaya uu keligii wadankaa dhan u jihaynaya meeshuu rabo raadkii waxaa ka ratimanayana iyay ku dhacaysaa shacabkii bay ku dhacaysaa marka waxaa fiican qof kasta oo maaragtay ay qaraarkaad qaadatid natiijada ka imanaysa ay saameynayso waa inuu qayb ku lahaadaa kolka horeba ilmahaaga xataa hadday saameynayso qaraarkaad qaadanaysid waa in laakiin inagu saa ma dhaqana may nasiib way fiican tahay laakiin wallahi anigu waan waxyaalaha aan axmed ka faa'iidaystaa kamid ah markaan iska fududaadeen waxaan doono sameeyo oon shay ku degdego oon qaraar iska qaato oon shay qabsado markasta wuxuu i xasuusiya hibo wixiina raadeynaya eena saameynaya qofkay saameynayso wayna kala tashatid qofkay saameynayso waynaad kala hadashid qofkay saameynayso waynuu ogaado uu ku talagalo uu isku diyaariyo laakiin anaa qaraarkii qaatay adigiina raadkii baan kaaga tegay cadaaladda ilaahayba maaha ya maya waxaan sawiranayaa dabcan qof go-aan keligiiska qaatay kuna ugu dambayntiina yacna ardulwaaqic kaga dhigay dadkii kale yacna ku qasbay in ay sameeyaan ay fuliyaan sidaas awgeed marka haddii qaraar qaadashadii iyo decisionada marka la samaynayo meelaha aadka la iskugu qabsado muranka uu kasoo noqnoqdo ayay ka mid tahay dacwooyinka ka imanaya qoysaska go-aan buu keligiis ka qaadanayaa go-aan bay keligeed ka qaadanaysaa waxan bay keligeed samaynaysaa cid ka warqabtay ma jirto dacwooyinka yimaaday ka mid tahay ninku inuu iska baxo oo uu is yiraahdo adigaa maaragtay meeshaan waxaa isku laaqan ma la socotaa leadershipkii hoggaankii baan adigu tahay kama dhigna in aad ku fardi yeelayso wax kastoo adigu aad soo diyaarsatay isla markaana
saalix adigu aad u aragtay naftaada inay tahay maya ha meeshaan nolol la wadaagay weeyaanoo go-aanka ugu dambayn dabcan mas-uuliyadda ha saarnaata ninka laakiin dee waxaa la rabaa gabadhu in ay qayb weyn ay ka ahaato ilmuhuna ay qayb ka ahaadaan ila meesha keligaa ma noolidi waa lagula nool yahay la soco oday mid yaroo kale han ku darsado nacam marka uu waa soo gabagabeynayna insha mas-uuliyadda ragga la saaray nacam gabdhuhu ayaynan u arkayn in iyaga lagu maaragtay liidayo Nacam. amba iyaga maaragtay waxba ma tihidin la leeyahay maaha wallahi waa naxariis ilaahay anigu waxaan u arkaa naxariis ilaahay waxa weeyaan qofkan bil-aadanka ah in company haddii ninkii xakumay uu qaraarka markuu qaato isaga ayay ka go-an tahay wixii ka yimaada hadduu qaraarkaa asiibana faa'iidadeedii uu leeyahay iyo wanaageygii ma Nacam. garatay Nacam. hadduu asiibi waayo oo dhibaata ay ka timaadana qofka ugu horeeya oo xanuunka iyo dhibtu ay taabanayso waa isaga nacam ma garatay Nacam. marka gabadha waxaaba laga ilaaliyaba inay dhibi soo food saarto ayada position waxaa la dhigay in maad aragtay in ay qofkan u tusaalayso inay la taliso inay u jihayso in ay la karkariso wixii laakiin waxaa lagaa ilaaliyey maaragtay culayskii ka iman lahaa qaraarku wax fudud maaha waxaana garan kara hooyooyinka keligood nool ee ilmaha keligood korsada way garan karaan qaraarkaad qaadanaysid iyo natiijada ka imanaysa iyo culaysku leeyahay wallahi qofka aan maaragtay qof la qaybtama culayska haysan ayaa garan kara marka runtii waxa weeyaan ninkuna inuu ku degdego maaha waa inuu wixii la nooloo dhan uu ka qaybgeliyo biidnillahi alkariim walaalaha gadaal ka soo gaadhay aad baan idiin salaamaynaa culimmadii aqoon-yahankii ay isugu jiraan dhalinyaradii iyo gabdhihii wiilashuba aad baad u mahadsantihiin mawduuc aad u ballaadhan oo runtii u baahan meelo badan in laga fiiriyo annagu waxaan soo bandhigaynay discussion ah furiinka maxaa sababa laba qodob ayaan runtii aan sheegnay oo labadu u baahan in lasii dhex galo oo lasii baaro ay u baahan tahay saddex baa inoo dhiman saacaddiina waa tagtay waxaan aada ugu mahadinayaa walaalaha iyaguna nala soo wadaagay aragtiyooyinkooga walaalka luqadda kelmadaha dabcan dee koonfur iyo waqooyi iyo maxaan ku dhahdaayey meelo fara badan ayaa laga yimid waa dhici kartaa kalimaadka qaarkood in la isla fahmi waayo waa idinka raallin gelinaynaa baaraka allahu fiikum aad baanad ugu mahadsantihiin baraarujinta runtii dadka anaaniga ah walaalaha soo qoray qaarkood qofka arrintii marka laga hadlaya go-aanka iyo wax samaynta qofka anaaniga ah aad bay u dhib badan tahay waa dabeecad aanan fiicnayn runtii u baahan in qofka ku jirana loo nasteexeeyo waqtina la siiyo isaguna uu bilaabo in uu wax ka bedela arrintaas waxaa sidaa dhinaca psychologiga in laga galo ayaan jecelaha qofka anaaniga ah ya qofka anaaniga waxaa la moodaa anaa idhi iyo anaa sidan sameeyey iyo aniga halay maqliyo markuu leeyahay wuxuu ka raadinaya awood ayuu ka raadinaya waxaa la yidhaahdaa qofka anaanigu meel buu leeyahay ya markaa self confidence-ka amba ku yar amba waxaa ku badan maaragtay kibirka iyo isla weynida ku badanoo wuxuu rabaa isaga in la maqlo amba meel buu leeyaha la yidhahdo marka in lagala hadlo maxaa keensaday inaad markasta ana uun tiraadid anigaa sidaan waayo kelmadii ibliis isticmaalo weeyaan ma garan inuu maaragtay yidhaahdo anaa ka khayr badan inuu yidhaahdo marka guurku sidiisaba ana ayaad ka tegaysaa markaas waxaa u guuraynaa annaka ayaad guuraysaa amba naxnu ayaad guuraysaa marka laba qof baa la noqday marka jamac ayay sheekadii noqotay way ka tagtay singalnimadii way ka tagtay kelinimadii markasta waa in la yidhaahdo anaku inaansaan waa ina anaku aan qaadana xataa markaan leeyahay anigu markaan leeyahay oo adiga ila nool ayaa waan ku yar fogey moogtahay laakiin haddii aan hadalkayga aan dabeecad uga dhigo anaku inaan waxaan samayno anaku ma samayn karnaa waxaan ma soo iibsan karnaa waxaan ma qabsan karnaa ya inaan way fiicnaan lahayd insha allah dadkaas oo kale waxaa soo hoosgalaya qofka maad aragtay keligii taliyaha la yidhaahdo hadda waa lasoo qoray qofka keligii inuu taliyo rabo oo maaragtay khalad buuba guurka ka fahmay kaasi anu waxaan isleeyahay inuu guurka khalad ka fahmay guurku meeshii adigu ka tali lahayd keligaa maaha maba guursateen haddaa rabti inaa keligaa wax talis wallahi billah maad guursateen waxaa u guursanaysid waxa weeyaan in aad maaragtay wada tashataan inaad qaraar wada qaadataan
inaad wax wada falaqaysaan, inaad isla fiirisaan. ilaahay labadii indhood buu afar kaaga dhigay, labadii dhagood buu afar kaaga dhigay, ya afkii lagu hadlayay keliga ahayd baa laba laga waa lagu badiyey maxaaba kelinimo keenayba. marka runtii waa fahanka khaldan ee waxyaalaha xataa horumarka nafta uu qofka naftiisa horumarinay waxyaalaha inuu ka toosiyo ay tahay, oo nafta ka tarbiyeeyo, oo nafta ka jafo ay tahay, ayay kamid tahay maaragtay keli talinimadu. aad iyo aad baan idin boogaadinaynaa macalimada hibana waan u mahadinayaa, jazaakum allahu khayran. waxaan kusoo gabagaynaynaa haddii eeba idmo waa wuxuu noqday faanole fari kama maya qodna. maya imika le bilowniba iska wad sheekh jawhar kudhiba ma jiro dhankayga. insha allahu tacaala waxaan diidayaa inaan waqtiga idinku dheerayno. waxaa walaaluhu soo qorayaan khayr allah siiyo. dabcan aad weydiina idinka haddii aad jeceshihiin habeen khaasa oo laga jawaabo su-aalaha inaan samayno, nala soo wadaaga soo qoray insha allah intaad hadda nala socotiin. maxaa yeele halkan su-aalo tiro badan ayaa ku qoran oo muhiima runtii. nusu saaxadda ma ku dari karnaa kawar dabcan waxaan ka baqayaa hadhowta marka la daawanayo in ay dheeraato, laakiin waa ku daraynaa 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo insha allah. walaal baa soo qoray qofka mashquulkiisa maya lamaanaha isqabamahana dadka sheekaysanaya. walaal horaa soo qoray dadka sheekaysanaya ee ay ka dhaxayso xidhiirku ka dhaxeeyo ka warrama. dabcan waxaan rajaynayaa in su-aashu ay sidaas ahayd. aniga waxaan isleeyahay de dadkaasi iyagu xidhiirku uu ka dhaxeeyo waxa ay rajaynayaan, ay filayaan, amaba xidhiirba uu u dhex marayo inay guri dhisaan, inay lamaana noqdaan, inay qoys noqdaan, inay ilmo helaan. waxaa la isweydiinay markaa la isweydiin karaa labadaa qof xidhiirkooda siday ku hirgelin karaan, siduu ugu suuroori karaa. arrintaas runtii waa arrin u baahan meelo badan in dhinacyo kala duwan in laga fiiriyo, maxaa yeelay duruufaha ay ku jiraan ayay u baahan tahay oo mar walba saamaynaysa xidhiirkooda. duruufta ay ku jiraan haddii ay tahay duruuf eeg marka soomaaliya laga hadlayo ama geeska africa, ummadeena soomaalida geeska africa ka timid marka laga hadlayo waxay ku kala xidhan tahay qofba gobolka uu ku dhashay iyo meesha uu kasoo jeedo sida looga dhaqmo. eeg qofna xidhiirkuu sahlan yahay oo uu fudud yahay, ee gobol aan idhaahdo uu fudud yahay, oo labadu cagsi waxay ku yihiin. midna waxaa dhici karta in uu degdeg u guursan karo, midna uu degdeg u guursan karin. dhinaca kale waxaa cagsi ah, degdeg guursadka waxaa dhici karta degdeg furiin inuu dhaco laftigeeda. waa wax iyaduna jirta oo maaragtay xaqiiqatan dhici karta. marka waxay u baahan tahay labadaa qofi khayr allah idin siiyo inay aada uga yani fiirsadaan xidhiirkooda. xidhiirkooda maxaa wanaajin kara, maxaa xaaraan iyo xalaal ka dhigi kara laftigeeda inay isweydiiyaan. siday u wada xidhiiri karaan, aaliyaadkay ku wada xidhiiri karaan. maanta nasiib daro, nasiib wanaagaan idhaahdo dhinacna nasiib daro. technology baa maanta la haystaa, waa nasiib wanaag, fursad lagu wada xidhiidho. dabcan hadda ka hor waan ka sheekaynaan u malaynaya intiina xasuusata, intiina ku cusubna. aniga macalimiintiiba markaan isguursanaynay waan kala fogeyn, distanceki aan hadda ka sheekaynayn, laakiin fursaddan hadda haysataan uma haysanin. waraaqaan isku qori jirnay, jawaabta lagu soo dirayana warqadaad maanta qorto bil kabacdi waa jawaabteeda helaysa. qofkii waad u qortay 2 way kabacdi buu helay, wuu akhristay, wuu kuu soo jawaabay. 2 way kabacdi adeeg kuu timid, waa bil ku dhan. laakiin maanta maxaa jira? dhallinyaradiina maxaad haysatiin instantly, haddaabad life laga daawanaysiin caalamka meel ka soo joogtiin. marka laakiin nasiib darrada dhacday maxay tahay? in abuse lagu sameeyo, in wixii loogu talagalay maahayna wax aan loogu talagelin lagu sameeyo, in cawradii iyo ceebtay banaanka lasoo dhigo, in sawir iisoo dir iyo balaayo iyo jin iyo wax aanan fiicnayn oo shahwadii qofka kicinaysa in maaragtay lagu isticmaalo. subxaan allah, ilahay baan ka magan galaynaa. ilahay ka badbaadiyo. quraankiisa jawhar wuxuu ku yiri wax kasto ilaahay abuuray, wax kasto waxaan ka dhignay zawjayn, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. billahi subxaan allah. maaha uun xoolaha iyo dhirta iyo waxa ma hataa bil aadankii zawjayn baan nahay, waan iska milaynaa
yaa axsanul khaaliqiin baana abuuray نعم marka in aan maaragtay alla ka cabsiga qayb weyn ayuu ka qaadanayaa guurka alla ka cabsigu wuxuu badbaadinayaa in labadan qof wada noolaashahiisi ayuu fududaynayaa wax lagu daalo bilaadan baa ugu khayroon wax lala noolaado oo lala tacaamulana bilaadan baa ugu dhib badan ilmahaaga xataa walaal baa haddeer soo qoray ubadkii aan dhalnay baa fallaago iyo mucaarad nagu ah maxaa la samayn karaa ubadkii haddayba mucaarad nagu yihiin maxaa la samayn marka heerkaasaa la maraya marka walaalayaal madaxa bil-aadan lagama quusto waxaa isagaana ugu fiican wax lagu dadaalo baynillahi alkalim marka ilaahay qur-aankiisa aan u fiirsano lacalakum tadakaruun buu ilaahay yidhi yaa marka inaan wax u fiirfiirsano oon eegno kala duwanaanshaheena oon eegno ilaahay baa qofkan ii dooray maxaa khayr iigu jira shartiisa seen uga badbaadi karaa sideen sujuudda aan ilaahay ugu baryi karaa inuu ilaahay shartiisa iga badbaadiyo khayrkiisana isoo aadiyo anigu sideen u dadaali karaa waxaasoo dhan ayaa la rabaa walaalayaal ilaahayna wuxuuna keenay daarul imtixaan baan joognaa meeshii keliya ee lagaga dhuuman lahaa ee lagaga gaban lahaa waa guriga soo maaha marka waxa weeyaan guriga ayaa loo soo carari lahaa guriga ayaa maaragtay dhibaatadii oo dhan lagaga nasan lahaa fikirkii iyo murugadii iyo culayskii banaanka kaasoo qabsaday guriga ayaad kaga dhuuman lahayd haddii gurigaagii aad ololinaysid ood gacmahaaga ku gubaysid ka waran soo aqli xumo meeshaydii soo maaha waa nasiib darro weeyaan waxaad baabi'inaysaa ood ku khasaarinaysaa qof dhan oo bil-aadan ah oo ilaahay ku hor keenay oo kugu buuxiyay adiga ayaad ku ciyaaraysaa qofkan bil-aadanka waxa weeyaan abuurkii ilaahay ayaa ku hor jooga qof dhan oo ilaahay sameeyey warshad baa soo saartayo jabaan baa soo saaray maraykan baa soo saaray laguma lihin allah ayaa soo saaray qofkan oo keenay oo ku alfay inaad nolol wada qaadataan dhinaca fiican haddaan wax ka eegno wax badan ayaa noo hagaagaya ma garan ilaahayna uuna imtixaanaya aayad kaloo qur-aan ah ayaa maaragtay aan xasuustaa suuratul maaragtay maxamed ku jirta ilaahay wuxuu leeyahay uuna imtixaani wuxuuna fiirin doonaa kuwa jihaadaya ee ku dadaalaya ee maaragtay u adkaysanaya ee sabarka la imanaya ilaahayna uuna tusi doonaa waxa aan samaynay oo ilaahay uuna horkeyn doonaa walanabluwannakum xataa naclama maaragtay mujaahidiina minkum wasaabiriin buu ilaahay ku daray wasaabiriin walanabluwanna akhbaarakum buu ilaahay yidhi waxa oo ilaahayna horkeenaya waxa aan samaynayno oo dhan iyo waxa aan ku dhaqaaqayno oo dhan ilaahay uuna horkeenaya walaalayaal haddaan equationka amba xisaabta aan ka saarno allah waxaan ku daalno waa khasaaro waa hal bacaad lagu lisay laakiin haddaan ilaahay xisaabta ku darsano oon idhaahdo qofkan sidan u qurux badan oo sidan u wanaagsan ayuu ilaahay isiiyey ina dadku may xumeen waxaa laga dacwoonayo badanka ma jirin bilowga gadaal buu ka yimiday marka ugu horeysaba taqwada ilaahay iyo hadalka la hadlayo ya nebi muuse oo nebi ilaahay oo lasoo diray baa ilaahay baryaya ilaaho lisaanka ii toosi lahaa maaragtay sida ii fahmaan oo waxa aan ku hadlayo quluubtooda uu galo marka sidaasaa la rabaa in shayga aan ku hadlayno qalbiga qofka uu galo oo maaragtay uuna fahmo ayaan rabnaa walaalayaal ilaahay qur-aankiisa haddaan ku noolaano haddii aan salaada aan ilaahay waxaan u baahanay u sheegano oo maaragtay qur-aankana aan akhrisano qofka waxaa la yidhi markuu rabo inuu ilaahay la sheekaysto salaad ha galo oo salaada ha tukado markuu rabo inuu ilaahay usoo jawaabana kitaabka qur-aanka ilaahay ha qaato ha akhristo jawaabtiibuu ka helayaa dhibaatadiisa iyo fikirkiisa iyo wanaagiisa iyo meesha uu noloshiisu maraysoo dhan aayad uga jawaabta ayuu helayaa subxaan allah oo qur-aankii ku jirta marka qur-aanka ilaahay ha u noqono si furinka aan ugaga badnabaadna bayna ilahi alkariim ilaahay qur-aankiisa waan kusoo xirayaa uu ilaahay leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah ilaahay ka cabsada attaqwa ilaahay cabsidiisa iyo ilaahay inaan ka dhowrsoono oo ka xishoono ilaahay wax badan ayayna taraysaa ma garan yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsun maa qadamat ligada wattaquu llah ina allaha khabiirun bima tacmaluun ilaahay waxaan samaynayno o dhan ilaahay ogyahay naf kastaba waxay hormarsatay ha fiiriso oo ha ka fiirsato waayo ficil kasta iyo hadal kasta iyo wax kasta account bay ku dhacayaan account aan dhammaanayn oo maaragtay la ilaaweyn oon dhumayn ayuu ku dhacayaa marka qofkan bilaadanka ku hor jooga intaa ka gudubtid adigu ilaahay la xiriir ilaahay la sheekayso ku dadaalna inaad qofkan toosisid marka lagu leeyahay taqwad la imow
oo qofkan bili-aadanka ilaahay dartiis ula noolo oo ilaahay dartii ugu dulqaada marka lagu leeyahay kama dhigna wax kastuu samaynaya ogolow kama dhigna. qofka ilaahay wuxuu jecel yahay xorta ah oo maskaxdiisa xor tahay oo qalbiga xor ka ah oo wax iska celin kara oo wax iska daafici kara oo wax wanaajin kara. jawhar anuu og inaan iska kaa celin karo ya baan handara waxaan samaynayaa waan kuu nasteexaynayaa waxaan ku leeyahay xadkaygii weeyaan kama soo gudbi kartid. seerahaygi waad soo seerahaygi soo geli marka insha allah waanan ku badbaadsanayaayo inaad berri xumaantii aanad igu samayn adiguna sidaasi leeg ma garatay ya waxaad iga ilaalinaysaa inaanan xad gudbin oon xadkii qofka kale noloshiisa aanan ku ciyaarin biidni illahi alkariim insha allah. khayr allah ku siiyo acbaar badiga qoslisay markaad hadlaysa hadallo cajiiba maaragtay ku hadashay allah ku barakeeyo. horta khatmigii qur-aanka inaad igu tufto waan sugaya caaw insha allah. ان شاء الله ما شاء الله ilaahay ka dhigo ku ziyaadiyo ilaahay ku barakeeyo. walaal baa soo qortay khayr allah siiyo walaalka isku mashquuliya telefoonka aan waqti ku siinin mar walba iska dhigaya inuu mashquulsan yahay mar walba telefoon uu ku jira maxaa laga yeelayaa runtii waxay u baahan tahay arrintaasi in waqti la isa siiyo qofkana lagu baraarujiyo. dabcan walaashaas waxay soo qortay nimanku canaanta ma jeclaa tirahdeen sideedee loola hadli karaa aduaba canaanan ayaad anigu runtii telefonkaan soo qaadan lahaa waa markuu rabo inuu ila hadla laha telefon qabsan lahaa maxaa riwaayad baa waxaa waa jirtay oran jirtay maxaa adiga ku keenay ha baarka adi maxaa ku keenay bay dhihi jirtay ma garan nin baa markii laga kari waayay inuu baarka islaantiisuna way tagtay moogta ilaahay naxariis janna ka warabi marka runtii waa maxaa adiga baarka ku keenay uu yidhi marka telefon baa looga jawaabi markuu qofku dareemana waxaa la leeyahay saaxiga ma wada baana aniga way dhibtay siday kuu dhibtay anigana ii dhibtay marka ka waran haddaan iska wada dhigno telefoonada ya waayo dagaal kaleba uma baahnaba adoo dagaalamin adigoona ayaad qofkii ku dadaalaysaa inaad tustid waxaanay dhibta uu leeyahay inaad tustid. waxaan isleeyahay macalimiintii khayr allah ku siiye telefoonka dabcan inta badan waliba qurbaha marka la fiiriyo gabdhaha lagaga dacwoon jiray oo raggu ka dacwoonayeen gabadha telefoon bay ku jirtaa telefoonada lagu jiray la sheegayana waxaa kamid ahaa layamanka la dhagaysto midkan maaragtay lagu sheekaystay ee lagu wada hadlo habasa noqoto ragguna way leeyihiin de oo waa kan lasoo sheegayo marka weliba telefoonka ragga weliba gabdhaha marka ay arrintaas dareemaan shiki badan ayuu keenaa telefoonkaas marka waxaan ku talinaynaa runtii in wax kastaba xadkiisa aan la dhaafin haddii xadkiisa la dhaafiyo waxay noqonaysaa in uu xumaan isku bedelo ama qofkii kula noolaayay uu ku dhibsado marka aad baan maaragtay arrintaas runtii uga digaynaa. hibana waa taa kaftan ku jawaabtay ee tiri qofka waa la dareensiiyaa markuu isagu dareemo haddii uu arko gabadhii oo ilmihii ka mashquushay oo maaragtay gurigii ka mashquushay oo noloshii ka mashquushay oo xataa odaygii ka mashquushay wuxuu yidhi gabadha telefoonkaa naga dhig muxuu yihi telefoonkaani marka laakiin waxaa suuragala inay dhib soo siyaadiso oo ayna dhibtii yaraynin sidaas awgeed qodobada aan ka hadlaynin runtii waa qodobo aan u wada baahannahay inaan isdul taagno maxaa yeelay maadaama oo la isguursaday ama guur loo socdo oo la wada nool yahay malaa'ig ma nihina ogaada dee bini aadan baan nahay bini aadan haddaan nahayna hadal waxaa jiray aada u qiimo badnaayoo maalin london aan ka jeedinayna seminaar ay hibatiro aada runtii nolosheeda u saameeyey hadalkaasi wuxuu ahaa qofkan kuu yimi ee guursatay meel baa lasoo gaarsiiyey waalid baa kusoo tabcay waa lasoo koriyey waxbaa lasoo baray jaamacad baa lasoo gaarsiiyey ama mayana ee college buu soo gaadhay ama isagoo yar buu shaqo galay eeg qofkani mustawuu taagan yahay mustawa waxbarasheed mustawo aqoon mustawo mas-uuliyad meel buu taagan yahay qofkan adigaad is hesheen waad isguursateen ka waran mustawuhuu jooga haddaad ka soo dejiso hadday dareen tahay moral niyadhis kalsooni fikir haddaad hoos uga soo dejiso akhlaaqdiisii hoos u soo dejiso dabeicaddiisii hoos usoo dejiso dhaqaalihiisii hoos usoo dejiso wax kastuu sameeya yacna
inta uu qofkani kuu yimiday uu kula nool yahay meeshii uu taagnaa hadduu hoos uga dhacay ka war soo cajiib ma waa dhibaato marka hadalkaasi runtii aad buu ii saameeyey oo waxaan isweydiiyey dee inta hiba kula joogto inteed sare u qaaday hibo su-aal baan isweydiiyaa ha sideed nolosheeda saray ugu qaaday oo aad meeshii shalay markaad guursatay ay joogtay maahayna maanta meel ka sarraysa ma joogtaa qof kasta waan jeclaan lahaa inay isweydiiyaan waa run welibana taa waxaan ku darayaa jawhar oo ilaa khayr ku siiyey wax fiican baad ka hadashay waa qasabba waaba qasab in aad wax ku dartid qofka kula nool noloshiisa lianna qaabki nolosha inteedii kale wax ka goynaysa gabadhii quruxda badnayd ee jidhkeygu ishayay ee maasha allaada ahayd ee kuu timiday maba noqon karto uur baad u yeesho waatan 9 bilood maaragtay kuu siday waatan ilmihii kuu nuujisay waatan habeen oo dhan kuu soo jeeday wax badan ayay weyday oyna sidii hore ahaanayn ma garatay waatan cimri degdeg ku dhacay waa kan maaragtay wejigeegii isbedelay hadduu doono caafimaadkeyguu saameeyaa uurku wax fudud ma ya waxa weeyaan wax badan buu uurku keenaa dadka 5 caruura dhalay ka waran dadka 4 dhalay ka waran dadka ka badan dhalay ka waran marka waxa weeyaan noloshii caadigaaba wax ka goynaysa qofkani adigu ha ugu biirin ha ugu zaa'idin ma garatay ku dadaal adigu 100% in aad ilaahow farxad yar maalin kastaba farxad yar suruur yar qalbigeyga amba qalbigiisa aad gelisid ninkiina waa sidaas leeg ninkiina hooyadu waxa la yiraahdaa 9 bilood bay ilmaha caloosha ku siday laakiin aabuhu cimrigiisoo dhan ayuu dhabarka ku sidayaa ilmihii waa cajiib moogtaa uu ka fikirayo markay hooyadu dhasho culayskii isagay ku wareejisay kursiintiisii iyo aabaha saxda ayaa laga hadlayaa ee iska xilqaamaya ubadkiisa ee u jooga u noole mas'uuliyadiisa qaadanaya aabahaasi noloshiisoo dhan buu ilmaha dhabarka ku sidanayaa hooyaduna 9 bilood bay kusoo siday marka waxa weeyaan in la yiraahdo ninkaygu maaragtay tinta ciradu yeena ku badan han ku dadaalo maaragtay vitamiinkiisa han ku dadaalo maaragtay nasashadiisa intaan nolosha u fudaydin karaan u fudaydiyo intaan niyada u dhisi karaan u dhiso intaan xataa wax la qaban karo han la qabto ya one income kaliya xataa faamiyada kuma filna maalintii aan ka sheekeynaynay dhaqaalaha waxaan aad uga hadalnay in ay dadku wax wada qabsan karaan oo business iyo hawlo kale la samaysan karo labada qof ee isfahansan ee maaragtay shuraaka intay noqdaan wax badan ay zaayidsan karaan marka walaalayaal maxay hayday nolosha han isku fudaydino nolosha inta yar aan haysano oo qubuurta aynaan ku ururin han ku dadaalno in aan maaragtay qof walba qofka kale uu farxad qalbigiisa geliyo wallahi qofna kaagama baano jidhka uma qubaynaysid cunto intaa soo qaadeen ma siinaysid hadduuna qofku lixaadkiisa uuna beelin waxa u qabanaysaaba iska yarba ya laakiin qalbigaas ayaa la rabaa in aad keergaraysid oo ilaalisid oo qofkan uu dareemo qof jecel inuu la nool yahay inuu guri fiican kasoo toosay inuu sariirtiisa markuu kasoo toosay uu happy yahay markuu ku noqonayo habeenkiina uu happy maartay sacaado ku jiro wixii kale oo dhan iska daafacaya xataa culimadu waxay yiraahdeen sayniska qofka la jecel yahay ee loo muujiyo jacaylka xataa daafaca jidhkiisa fiican waa cajiib moogta immune systemkiisa tabca uu adagaya strong buu noqonayaa wuxuu u noqonayaa waxa weeyaan in stressku wuxuu cunaa white blood cellka ayuu aad u cunaa white blood cellkuna waxa weeyaan dhiigaaga cad waa ka daafaca ilaahay ugu talagalay fikirka badan haddaad qofka ka ilaalisid jidhkiisu uu isku filan yahay inuu isdaafaco uu iska daafaco xanuunada iyo dhibaatooyinka kale ee qofkaas maaragtay u imaanaya walaal baa soo qoray hameenka axadda haddii aad nooga dhigi kartiin hameenka su-aalaha qoyska la xidhiidha waan jeclaan lahayn aad baad umahadsan tihiin walaal kale wuxuu soo qoray qofka maxaan ku idhahdayay raba waxaan filaya gabadhay ka imaanayso oo ay ragga ku socoto qofka raba inuu u badsado reero reerna maaragtay qurbo kule reerna africa kule waktigu uunan maaragtay loo ilaalinaynin reerkii labaad ama reerkii saddexaad ama whatever marka arrintaasi waa arrin runtii aad u baahan in looga fikiro waa meeshii cadaaladda aan sheegayna ee haddeer aan tilmaanay ee u baahnay in la fiiriyo runtii arrintaasi aad bay muhiim u tahay waxayna khusaysaa ragga oo ragga ayaan maaragtay kula talinaynaa waxa ilaahay baneeyey idinku
ha iska halaynina muusigiisa ku sameynayna ha waa kaa idinku ha iska xumaynina idinku yaynan idinka imanin dacwo iyo ashkato adiga baaqiyaan lagugu yeelanin dhibaataha korsan ha maxaa yeelay berri adduunyada waxaa ka daran yowma alqiyaama waa la is soo taagayaa waqifuuhum inahum mas-uuluun ha marka lagu soo taago qiyaamada waa lagu weydiinayaa dee reerahaan ha mau cadaalad fashay waktigoodii ma siisay ma kula heshiisay duruufta ma ka wada hadasheen ma isla wada aragteen raalli ma iska ahaydeen wax aan raalli lagaaga ahayn miyaad samaysay waa su-aalaha ku sugaya marka qofka isagaa laga rabaa runtii inuu xisaabtamo uu ku xisaabtamo aakhiradiisa noloshu way kooban tahay walaalo aan jecel lahay ayaa caawa naga horeeya qabri ku jira ilaahay ha u nuuro ilahay qabriga u nuuro ilahay qabriga u nuuro waxaa maxaan ku dhahdaay ugu dambeeyey walaal aan garanayo la iisoo sheegay oo la yidhaahdo sheekh nuur oo canada toronto farxiya halkan baan uga tacsiyanaynaa ilaahay subxaana watacaala walaalkeen qabriga ha u nuuro shalay wuu fiicnaa wuu xanuustay wuu geeriyooday adduunyadu marka waa taas qofkii aad jeclayd ee walaalka ahaa ama saaxiibka ahaa ama zawjkaaga ahaa baa tegaya waan u tacsiyanaynaa saas oo kale rodo wacays walaashii turkiyaduna ku dhibatay isbuucii hore ilaahay maaragtay qabriga ha u nuuro dee qofba ma jeclo qofkiisa inuu dhinto laakiin ilaahay baa qoray de kullu nafsun daa'iqatu lmowt hadday bahashu marka saan u kooban tahay oo waalidkaa uu kaa tegay oo qofkii alla nooleeyadeed jeclayd uu kaa tegay adiguna maalin baa tegay noloshu way kooban tahay waxaa marka nolosha muhiim ah inuu qofku aad ku seexdo ku soo kaco aakhiro hataa barnaamij waxaa jira jowhar oo dadka lagu baraarujiyo oo odhanaya waxaa la odhanayaa gabadhii baa loo yeedhayaa amba ninkii labadooda laba waqti oo kala duwan marka waxaa la odhanayaa saxaarad baa la hor keenayaa oo qofkii meydka camal inuu ku jiro oo kale qofkan ku jira saxaaradan saxaaradan uu dhinta waa qofkaagii waa zawjkaagii amba waa haweenadaadii amba waa ninkaagii warqadu qor baa la leeyahay wix alla wixii wanaag aa ku qabto oo dhan wixii khayr kuu sameeyo oo dhan ay kuu samaysay iyo wixii wanaag aad jeceshahay inaad la qaadatid inta shay eed rabtay inaad la samaysid qofkan oo malakalmoodniga soo kala dhex galay warqadan ku qor nacam dadkii way ooyeen way baroorteen wallahi ninkii iyo naagtiiba qofkii markaa loo yeero qor la yidhahdo warqadaba calooshaa rugmanaysay ma garateen marka qofkan iminkan hor joogo aan iskaga ciyaarayna waqtiga sidaas bilaa macniga aan ku dhiminayno maalin waxaa imaan doonta intana na kala kaxeeyo aan odhanayno jeclaan lahayaa inuu qofkaygii maanta ila joogi lahaa dadkii kale dumarkii kaloo ragoogi la socdaan amba maaragtay gabdhihii kaloo ragoogi wata markaa aragtid qofkaagii baad soo xasuusanaysaa magaran marka waxa weeyaan runtii wada joogani ma sii daa'imayo oo labadan qof wad ayay leeyihiin in jaaniska la haysto xataa caafimaadkiibaabaa khatar ku jiraba da marka la gaadho labadii qof oo kala laalaaday markuu miday ay dhibaato ku timaado see la noqon waa dhibaato marka waxa weeyaan maxay hayday jacaylkan ayaa lagu badbaadayaa naxariistaa lagu badbaadayaa isfahankaa wadahadalka in la badiyo xilliyada jaaniska la haysto in la wada sheekaysto oo la wada hadlo oo la kaftamo oo waqti la isla qaato ayaa fiican labada qof fadhiga intay wada fadhiistaan gacmaha isqabsadaan koob shaaxa wada karsadaan ilaahay ay ka baqaan oo waqti wada qaataan ayaa la waxaasi wuxuu xoojinayaa guurkooga walaalayaal biidnillahi alkariim insha allah mawduucyada furiinka way badan yihiin ilaa 6 qodob ayaan rabnay inaan ka hadalno laakiin laba kaliya baan ka bixi weynay caawad ujeedin waqtigiina waa tagay ilaahay waxaan ka baryaynaa tawfiiq ilaahay waxaan ka baryaynaa ikhlaas ilaahay waxaan ka baryaynaa badbaado ayaan ilaahay ka baranay inaan ducaysano oon quraanka ilaahay u cararno oon quraanka ilaahay akhrisano oon isku tufno oon isku ducayno oon ilaahay ka magan galno sharka shaydaanka iyo insiga maaragtay sharkiisa inaan ilaahay ka magan galno ayaa la rabaa walaalayaal in ilaahay hana fahansiiyo oo maaragtay ilaahay quluubteena ha u gadiyo sida wanaagsan ilaahay ha u gadiyo insha allah khayrahan ha noo badbaadiyo amiin ya rab xagaasaan kusoo gabagabaynaynaa aad bay u mahadsan tahay macalimad hiba cumar
idinka walaalaha nala socday saacad iyo badh aad iyo aad iyo aad baan waqtigiina idinka mahad celinaynaa aadna siiseen. waxaan aada u rajaynayaa in aada la wadaagtiin walaalaha kale oo aada la sii sheer garaysaan insha allahu tacaala. ilahay waxaan ka baryayaa wixii aan nidhi ee wanaagsanaana inuu nagu anfaco adduunyadeenna iyo aakhiradeenna. wixii carabka xaday annagoo ogeyn naga qaldamayna ilahay baan subxaanahu watacaala cafis iyo maaragtay qufraan aan weydiisanaynaa. idinkana naga raalli noqda haddii aan warkana idinku badinay idinkuna cidhiidhinay waqtiga. aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsannahay in ilaahay uu noo sahlo hawada mar kale inaan kusoo noqono. waan sii wadi doonaa hadduu ala yidhaahdo. idinkana noo soo duceeya, annaguna idiin soo ducaynaynaa. jazakum allahu khayran. waxay noo sheegtay macluumadii kitaabka qur-aanka in lagu dhago, sidaas oo kale in kutubta wax laga faa'iidayo in la barto. aniga marka waxaan idinku adkaynayaa walaalaha imaqlaya hadda ee ku jira iyo walaalaha gadaal ka maqli doona, maadada guurka in la barto waa iga dardaaran. in la barto sida financeka loo barto, sida maaragtay psychologyga loo barto, sida loo barto any other maxaan ku dhahday subject. waa in loo barto guur maxaa ka ratima, sideen u noqon karaa qof ku guulaystay qoyskiisa iyo guurkiisa. intaasaan kusoo koobi lahaa. jazakum allahu khayran. ilaahay waxaan ka baryayaa waqtigiinana inuu barakeeyo, cimriga idiin barakeeyo, nolosha idiin barakeeyo. ilaahay inta aan isla joogno ilaahay ina xifdiyo, inagu xifdiyo kitaabkiisa, diintiisa. ilaahay shar oo dhan, shaydaan iyo shirkigiisa ilaahay naga xifdiyo. haddii ay teena noqotona ilahay waxaan ka baryayaa xusnulkhaatima. xusnulkhaatima inuu ilaahay ina siiyo oo aan adduunyada kaga guurno isagoo rabbi raalli inaga yahay. radiinaa billahi rabban wabilislaami diinan wabimuxamedin nabiyan warasuula sala allahu calayhi wasalam. aad baan idiin jecel lahay, waan idin salaamaynaa aniga iyo maaragtay saaxiibadeeda nolosha hiba cumar geelle. aad iyo aad baad umahadsan tihiin. dacwaatikum. asalaamu calaykum waraxmat ullah. fi amaan illah.